kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha badan halkan waa Bulsho Sports TV markan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha qodobada idin hayna waxa kamid ah PSG ayaa ogolaatay heshiiska Donnarumma milkiilaha Chelsea Abramovich ayaa doonaya Harry Kane Fabian Ruiz ayaa doonaya inuu ka tago Napoli intaas waxa ayaan qodobadii wararka ciyaaraha Bulsho Sports TV haatan ku soo dhawaada asagoo faahfaahsan PSG ayaa ogolaatay heshiiska Donnarumma qodobkaasi waxa eegaya Xasan Cumar Xuseen Paris Saint-Germain ayaa heshiis afka la gaartay Donnarumma sida uu warinayo saxaafiga Fabrizio Romano qabashada ugu dambeysay waxa la gelinayaa qandaraas 6 sano oo ah goolahayaha 22 jirka ah kaasoo si bilaash ah uga tagi doona kooxda AC Milan dhamaadkan bishan PSG ayaa la shaqeynaysa goolahayaha xulka Talyaaniga si ay ugu ogolaato inuu tijaabada caafimaadka ku maro xerada tobabarka Euro 2020 si ay u dhameystiraan heshiiska maalmaha soo socda milkiilaha Chelsea Abramovich ayaa doonaya Harry Kane qodobkaasi waxa eegay Maxamed Ibrahim Bibaye milkiilaha kooxda kubadda cagta Chelsea Roman Abramovich ayaa hadda doonaya guud ahaanba inuu soo gabagabeeyo qorshihiisii ku aadanaa waryaanka kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ee Harry Kane qorshahani ayuu damacsan yahay in uu suurtageliyo inta uu furan yahay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda laacibkani hogaaminaya xulka qaranka wadankaasi Ingiriiska Harry Kane ayaa toddobaadkii ugu dambeeyay ku dhawaaqay inuu isaga dhaqaaqi doono istaadiyaha kooxda kubadda cagta Tottenham xidigani ayaa waxa baadigoobayo ku dhawaad 5 kooxood ee ka dhisan tartamada qaaradda Yurub ayadoo kooxdan ka dhisan waqooyiga London ee Tottenham ay doonayso in ciyaaraankaasi ku fasaxaan adduun lacageed gaaraya 150 milyan milkiilaha kooxda kubadda cagta Chelsea Roman Abramovich ayaa go'aankiisa ah inuu qiimo hooseeya uu ku dalbado xidigan ka tirsan kooxda kubadda cagta Tottenham waxaana hadda la soo warinayaa qiimo gaaraya 60 milyan oo geni inay kooxda kubadda cagta Chelsea ku dalbanayso ciyaaraankaasi Harry Kane sidoo kale maamulka sare kooxda kubadda cagta Manchester City ayaana doonaya inay arintani xoojiyaan maadaama ay u baahan yihiin badal u qalma Sergio Kun Aguero ee dhawaan ku biiray kooxda kubadda cagta ee Barcelona Abramovich ayaana markaa kalsooni weyn ku qaba in ay qorshihiisa ay u noqon doonaan mid hergeli doona maadaama ay mugdi xoogan ku jirto wada shaqeyn ku aadan labada kooxood ee Tottenham iyo Chelsea Ramanka ayaana markaa muhiimadiisu ay tahay inuu ku soo guuleysan karo hadii uu xoojiyo dalabkiisa ku aadan ciyaaraankan ee Haaland ayadoo sidoo kale ciyaaraankan ka tirsan kooxda kubadda cagta Tottenham ee Harry Kane ayadoo sidoo kale ay doonayso xidiga kooxda Borussia Dortmund ee Haaland Fulham ayaa diiday dalabkii ka socda Mitrovic qodobkaasi waxa eegaya Xuseen Cumar Xuseen Fulham ayaa ka diiday dalabka ka socda Mitrovic Fulham ayaa ka diiday dalabka 16 milyan ee Dinamo Moscow igu yimid weeraryahanka Alexander Mitrovic sida ay qortay The Sun kooxda Reeland ayaa ku adkaysanay inay ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Serbia uusan u hayn iib inkastoo ay ka artay Premier League xil ciyaareedkii hore si kastaba ha noqotay Mitrovic ayaa ka fiirsanaya mustaqbalkiisa kooxda kadib markii uu ku soo bilowday kaliya 13 kulan intii lagu jiray ololihii 2020 waxaana laga yaabaa inuu raadsado meel kale Atletico Madrid ayaa diiday dalab uga yimid wakiilkiisa Jesus Corona oo ay inay kula soo saxiidaan si bilaash ah laakiin siya ciyaaryahanka lacag gunaha sida laga soo xigtay record weeraryahanka reer Mexico ayaa 6 xil ciyaareed ee ugu dambeysay ku qaatay Broad isagoo ku caawiyay 18 caawin horyaalka labadii sano ee la soo dhaafay laakiin wuxuu ku rajaynayaa inuu heli karo meel ka baxsan kooxda waatan la joogo Sancho wuxuu qarku saaray inuu saxiixo heshiiska weyn ee Manchester United qodobkaasi waxa eegaysa Qamar Maxamed Cumar Sancho wuxuu qarka u saaran yahay inuu saxiixo heshiis weyn oo Man United Jordan Sancho ayaa qarka u saaran inuu noqdo mid ka mid ah kuwa ugu mushaarka badan Premier League maadaama Manchester United ay sii wado wada hadalada ay kula jirto Borussia Dortmund oo ku aadan qiimaha ciyaaryahanka garabka ka ciyaaray reer England Damel ayaa qortay in Sancho uu ku kasban doono mushaarka uu qaato goolahaye David De Gea ee isbuucii
oo ah 375,000 haddii uu ku biiro kooxda ka dhisan Old Trafford, taasoo ka dhigaysa inuu ka mid noqdo 5 xidig ee ugu mushaarka badan horyaalka Premier League. Man United ayaa horey u heshay dalabka qiimihiisu yahay 67 milyan oo lagu daray lacago dheeri ah oo ay diiday Borussia Dortmund, iyadoo kooxda reer Jarman ay doonayso wadar ahaan xirmo dhan 86 milyan euro. Barca ayaa laga yaabaa inay fasaxdo Dembele. Qodobkaasi waxaa eegaya Maxamed Ibrahim Bibaye. ciyaaraanka kooxda kubadda cagta ee Barcelona Ousmane Dembele ayaa u muuqan kara guud ahaan mid isaga dhaqaaqi doona xil ciyaareedkani kooxdiisa Barcelona sida ay daabacday jirada ee Spain. Sheekooyinka ugu waaweyn ee warbaahinta wadankaas Isbaanishka ayaa markaa shaacinaya. Wariyaankani reer Faransa ayaa mudooyinkii ugu dambeeyayba waxaa dalabyo fara badan ka soo gudbinaya qaar ka mid ah kooxaha ugu tunka weyn horyaalka wadankaasi Ingiriiska. waxaana hadda la xusayaa in kooxda kubadda cagta Barcelona ay natiijo weyn ay u tahay bal inay ka fikiraan inay fasaxi karaan laacibkani Ousmane Dembele. Wariyaankani reer Faransa ayaana markaa xusaya in fursadiisu ay tahay inuu helo meel ka baxsan Stadio Nou Camp ee kooxda kubadda cagta Barcelona, ayadoo markaa sidoo kale toddobaadkii ugu dambeeyay lala xiriirinayo kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee ka dhisan horyaalka Ligue 1 wadankaasi Faransiiska. Laakiin shakadii ugu dambeysay ciyaaraankaasi Ousmane Dembele ayaa markaa ah in Barcelona kaliya ay ga doonto dhaqaale aad u fara badan. Haddii laacibkaasi uu ku sii nagaado kooxda kubadda cagta Barcelona, wuxuu noqon doonaa mid guud ahaanba si xur ah ama suuqa xurta ka dhaqaaqi doono gordhow kooxda kubadda cagta Barcelona. Arrintaasi ayayna markaa doonaysaaba in aysan ku dhicin qabta suuqa madow ee xil ciyaareedkani. Pique ayaa doonaya imaanka xidiga Haaland. daafaca dhexe ee kooxda Barcelona Gerard Pique ayaa waxaa laga weydiiyay weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund Haaland mar uu la hadlayay Marca, wuxuuna sheegay inuu ku soo dhaweynayo ciyaaryahanka kooxda Barcelona. Gerard Pique ayaa sheegay Marca ciyaartoyda waaweyn waa inay nala joogaan, laakiin taasi waa go'aanka kooxda ay qaadanayso qaabka ay u soo fududaan karaan qorshahooda suuqa sanadkan. Fabian Ruiz ayaa doonaya inuu ka tago Napoli. Qodobkaasi waxaa eegaya Maxamed Ibrahim Bibaye. laacibka kooxda kubadda cagta Napoli ee Fabian Ruiz ayaa guud ahaanba markaa la xusayaa in dalabyo muhiim ah ka soo gaaraya kooxaha kubadda cagta Barcelona iyo Atletico Madrid. wararka qaar ee warbaahinta wadankaas Isbaanishka ayaa soo warinaya ciyaaryahankan qadka dhexe ee dalkaas Isbaanishka oo qayb ka ah ciyaaraha Euroga ee dalkaas Isbaanishka ayaana markaa u muuqanaya mid guud ahaanba kanigi jabsan mustaqbalkiisa ku aadan inuu ku sii sugnaado horyaalka dalkaas Talyaaniga. si kastaba ha noqotee Fabian Ruiz ayaa diidan labadii dalab ee markaa ugu dambeysay ee ku aadan maamulka kooxda kubadda cagta Napoli inay ku sii hayaan garoonka Diego Maradona Stadium, waxaana waqtiga kan xaadirka uu doonaya ciiraankani inuu ka egto soo dhaweyn ku aadan kooxaha bariyii ugu dambeeyay bal la xiriirinayay. kooxahani kubadda cagta Barcelona iyo Atletico Madrid ayaa doonaya xidigani Fabian Ruiz inay dib ugu soo celiyaan horyaalka liigaha wadankaas Isbaanishka, ayagoo doonaya inay kula soo wareegaan qiimo gaaraya 45 milyan oo ay markaa ku doonayaan xidigaasi mar kale inuu kaga soo dhex muuqdo. halka kooxda kubadda cagta Real Betis ay hore u sheegtay inaysan markaa u baahneen, laakiin Napoli waxay ku doonaysaa qiimo gaaraya 60 milyan oo ay ku sheegeen in Fabian Ruiz ay ku fasaxi doonaan waqtiga kan xaadirka, haddii kalena uu baaqi ku sii noqon doono tan iyo sanadka 2023. intaan kusoo gabagabeynaa wararkii ciyaaraha ee Bulsha Sports TV waxaa idiin soo gudbinaysa anigoo Amuune Cismaan. waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.